metabolism waxa la dhahaa qodobkeena saddex metabolism waa processka kaasoo loo kala jijibinayo dawada oo jidhku markaa u kala burburinayo breaking down uu sameynayo drugs dawooyinka waxaan uu ka kala dhigayaa different chemical compounds kiimikaalo kala duwan buu ku sameynayaa waxaa la yiraahdaa kiimikaalada markuu kala duwan ku sameeyo metabolites ayaa la yiraahdaa waa processkani markaa muxuu muhiim u yahay in removing lagu sameeyo drugska dawooyinka in removing lagu sameeyo from the body jirka laga saaraya si loogu bedelo inactive drugs into the active form dawadu marka hore waa inactive weeyaan waxa loo bedelayaa active form qaab ayuu isticmaali karaan jirku uu isticmaalo ayaa loo bedelay metabolism hadaan maqasho arday halka ila fahan waxa weeyaan burburin lagu sameeyo dawadii tusaalahan way soo gashay Soomaa marka hore waa inactive ma shaqeynayso laakiin marka beerka tagta metabolism lagu sameeyo la burburiyo dawooyinkii waxay noqonaysaa hab la active form oo dawadii way shaqeynaysaa beer la'aan dawadu ma shaqeyso dawadu haba yaraatee ma shaqeynayso marka dawada beerka la sii mariyaa deena marka beerka la sii mariyo waxba ku sii daraa deena dawadu wax ka dhiga dawadu ay shaqeynayso waay qodobka kale waxa weeyaan dawooyinka marka sidee loo how drugs metabolize loo sameeyo enzyme lagu daraa enzyme marka liverku sii daayo ayaa lagu daraa deena liverku muxuu sameynayaa wuxuu burburinayaa ama kuwa digestive tract ku jira deficietka kuwa ku jira muxuu haayay kaliyaha ku jira waxa soo dhan enzyme-yadaas ku soo dhani dawada waxay ka dhigaan into the metabolite bay ka dhigaan cytochrome P450 enzyme or 450 enzyme ka la yiraahdo enzyme-kan wuxuu sameeyaa liverka wuxuu ugu mas'uul yahay in metabolism lagu sameeyo ama metabolizing lagu sameeyo molecular lagu drugska dawooyinka lagu sameeyo marka muxuu taraa wuxuu kaan taraa how quickly drugs are metabolized sida ugu dhaqsaha badan leh ayuu isagu drugska ama dawada metabolism lagu sameeyo ama u burburiyaa phase 1 reaction baa jira wax la dhahdana beerku uu sameeyo qaybtan marka reaction wuxuu sameeyaa dawada wuxuu u bedelaa hab dawadiyo adag baynu cabnaa Sooma ama cunana dawadu wuxuu u bedelay water soluble compound wax biyaha ku milmo kala ayuu ka dhigaa isagoo marinaya hab oxidation reduction and hydrolysis mar in lagu daro oxygen ama oxygen laga saaro reduction lagu sameeyo mar wax laga saaro sidoo kale la burburiyo oo biyi tusaalahan biyi hadii ku jiraan biyi laga burburiyo hydrolysis lagu sameeyo isagu wuxuu ka dhigayaa dawadan hab tusaalahan oo kala water soluble ah ama noqon kara wax biyaha la falgali karo kala what happens metabolite marka maxaa dhaca saddex arin baa dhaca marka metabolite laga dhigo ama metabolites laga dhigo inactive metabolite qayb la yiraahdo inactive metabolite qaybtan marka maxay sameysaa qaybtani less likely impact in body waxa saameyn kuma yeelato inactive metabolite saameyn kuma yeelato jirka gabiisa waa inactive waa qayb inactive toxic metabolite waa qayb marka la sheego harmful ah oo ama liver toxicity ku gayn karta liverka qofka ama maxaa la yiraahdaa beerka qofka sumo ku keeni karta marka qaar koodna waxyaabaha cancerska sababa carcinogenesiska sababa keeni karta waa qayb toxic ah ayaa u kala baxaysa marka wixii la burburiyo saddexda form bay soo baxaysa formka ugu dambeeya waa active metabolites waa qaybta ugu wanaagsan waana qaybta aan rabno waa qaybta qofka daweyni kasta soo saaraysa produce soo saaraysa desirable therapeutic effect qaybta marka wax daweynaysa weeyaan waana meesha active metabolite aynu raahno waana inta ugu badan meesha aynu rabno inayno soo baxdo inta faa'iidada dawada ah waxa la yiraahdaa active metabolites waa inta faa'iidada jirka u ah inta marka ka nimaano what is the drug metabolism important maxay muhiim u tahay hadaba in la jijiyo drugska waxay muhiim u tahay drug metabolism waxay naga caawisaa in dawadu baxdo
in dawada la saaro kow ay tahay in badan ay ku jirto jirka ayay si fiican oo adag u shaqeyso. Drugs metabolism determine waxay jaangeysaa how long and how strongly drug works. Intay in leeg jirka ku jiri jirta ayay intay in leeg ba shaqeyn kartaa. Drugs metabolism can be helped waxay naga caawisaa convert inactive in dawadii inactive ka ahayd u bedelsho drugs into the active drugs. qayb shaqeynaysa ama dawo shaqeynaysa inay ka dhigto. Saddexda qodob baa ugu muhiimsan. Haddii lagu weydiiyo waxaad oranaysaa saddexda qodob baa ugu muhiimsan. Waay drugs metabolism sidee dawada looga habkan afartan qaybood ee intii aynu soo marnay bay maran karna waa maxay waxa weeyaan intii ugu muhiimsan. Drug metabolism lagu sameeyaa drug phase-kii koowaad maraysa in wax lagu daro in wax laga jaro iyo in wax la burburiyo ayay maraysaa. Dawooyinka qaar waa la saarayaa qaarna waxa la sameeyaa in wax lagu daro deena dawooyinkaas waxay noqonaysaa dawo qaybna waxa elimination lagu sameeyaa laba jeer baa la sameeyaa in haddii dawadaas inactive noqoto wax lagu daro deena elimination lagu sameeyo marna waxa lagu sameeyaa phase 1 ka inta badan la isticmaala phase 1 ka ugu muhiimsan dawada therapeutic effect baa soo baxaysa ama qaybtii active ka ahayd baa soo baxaysa deena waa saan haddii phase 2 la mariyo waxa dhacaysa in wax lagu daro deena ay wax tarto deena waxa la sameeyaa maxay in dib loo celiyo phase 1 lagu soo celiyo waay tan aynu iska yara dhaafno waay factors ka saameeya dawada metabolism aad buu yara badnaa waay maxaa saameeya enzyme ka saameeya enzyme qofka inhibition lagu sameeyo tusaale ahaan dawadii la saari waayay baa reducing drug clearance in hoos loo dhigo dawadii la saarayba oo enzyme-yada qaar ay sameeyaan waay ay saameyn ku yeeshaan disease cudurrada qaar baa saameyn ku leh sida qajid hyperthyroidism-kii beer xanuunkii oo kale liver diseases-ka ama beer xanuunkii cudurrada ku dhaca liverka drug dawooyinka qaar cimetidine atenolol kuwaas ka caanta badan saameeya oo hoos u dhiga metabolism 2-ga way condition xaaladda pregnancy hooyadu haday leedahay haddii qof weyn tahay oo hadduu qof weyn yahay qofku hadduu ilmo yar yahay labadaba saameyn bay ku yeelanayaan waayo beerkoodu inta badan saameyn bay ku yeeshaan inay hore metabolism u sameyn waayo dawada saarista waa qodobkii ugu dambeeyay dawo saaristu ama iyadoo dawada jirka laga saaro is the movement drug excretion waxa weeyaan is the movement waa drug in dawada from the tissue laga keeno tissue-gii isticmaalay and blood dhiigga la keenaya to the external environment dibadda marka loo saaray dibadda maxay loo saaray halkan waa nephron xabad nephron soo qaaday dawadii xididkii bay dhex maraysaa deedna halkan ma laga saaray deedna external baa loo saaray wixii kale dawada ka soo haray dhiigana dib baa lagu celiyaa dhiigga waayahay tanna waxa weeyaan waa daga excretion marka la saarayo dawada afarta meel baa in glomerular filtration la sameeyo inta yar glomerular la dhahaa ama glomerulus baa la dhahdaa in dawada halkan kalidii weeyaan tan waa qaybo kamid ah xididada ay soo qaadanay tuumbooyinkii tuumbadan baa nuugaysa xidid kamid ah xididada jidhka kuwa ugu waaweyn renal artery la yiraahdo way ka nuugaysaa deena markii ay ka nuugayso ayay waxay sameynaysaa wixii khashina halkaas la marinaya deena dibadda loo saaraya kalidii halkan dibadda ugu saaraysa aasakaad ahaan baa loo sameynaya marka aasakaad ahaan deena dibadda wixii nafaqooyin ah iyo wixii kalena waxa la dibadda lagu celinayaa dhiigga oo si aanu dibadda ugu bixin laakiin wixii khashina ka soo haray waxa laga dhigaa kaadida la raacinaya waa intaan kaga nimaadna kaas factorska affect excretion waxyaabaha saameeya isaga wax kasto saameeya waan ku soo sheegno kan waxa saameeya shaqada shaqada kaliid u qabanaysa renal function waxa la yiraahdaa shaqada ama renal function rate shaqada uu kaliid u ama rate aan ku darno shaqada ay qabanayso uu qabanayo kaliid ay qabanayso liver functionska shaqada uu qabanayo beerku saameyn bay ku yeelanaysaa hadii bile-kii tahay beerkii laga soo din jiray liverka veins-kii saxaradii lungs-kii waxaas oo dhan saameyn bay ku yeelanayaan urine sidoo kale urine waa kaadidii pH-ka urine leedahay saameyn bay ku yeelanayaan inay kaadidii dosage-ka inta qof xaddi uu qaaday ama qaatay dawo qaatayna saameyn bay ku yeelanayaan factor saameyn bay ku yeelanayaan in la saaro dawada waayahay qodobka ugu dambeeya aynu soo qaadanay waxa weeyaan summary distribution marka hore dawada absorption baa lagu sameeyaa caloosha laga soo nuugiyo tusaale ahaan ama jidhka ama meel kale markii laga muday
deedna waxay tegaysaa bloodstream-ka ama wadnaha wuxuu geynayaa dhammaan jirka oo dhan buu geynayaa markuu jirka oo dhan geeyo waa laga soo qaaday maye waxa ka horeeya distribution marka lagu sameeyo metabolism baa lagu sameynaya beerkii baa lasoo marinaya beerka marka lasoo mariyo metabolism hab active form ama inactive form buu ka dhigayaa ama qayb toxicity buu ka dhigayaa suma labada kale oo la iska daynaya laakiin labada qayb active ka ah baa inoo faa'iido noqonaysa oo qofkii daweynaysa deedna marka dambe jirka waa laga soo saarayaa tishiyadii oo dhan dawadii waa laga soo saarayaa kelidaa la keenayaa ama jirka inta badan kelidaa laga saaraa ama jirka laga saari doonaa deedna marka kelida laga saaro waxaa noqona kaadi ahaan baa looga saaraya dawadu qaabkaasay u samaysantaa marka maanta waxaynu dhammaynay 4 nooc ee jirku dawada u saameynayay ama pharmacokinetic waxaynu oran jirnay pharmacokinetic waxa weeyaan dawada siduu u saameyn ama siduu u weerarayo jirku ama waxa uu ka yeelayo weeyaan afar ka yeelaa inuu absorption ku sameeyo nuugitaan fidiyo uu jirka geeyo sidoo kalena lagu sameeyo burburin sidoo kalena lagu sameeyo in kaadi laga saaro marka afarta qodob baa ugu muhiimsan